bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhageystayaal qodobada wararnimadan idiin diyaarisay waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo wada olole mooshin ka dhan ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya gudoomiyihii gobolka Hiiraan oo xilka qaadis lagu sameeyay saacado kadib markii uu eedeyn u jeediyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxkamad ku taala Mareykanka oo 12 sano iyo bar ku xukuntay sarkaal Soomaali ah kana tirsan booliiska Mareykanka oo dil geystay koonfur galbeed oo dibadhis ku bilaabaysa buundada bariire oo shabaab ay qarxiyeen sarkaal ka tirsanaa waaxda canshuuraha Shabeellaha Dhexe oo lagu dilay magaalada Jowhar Mareykanka oo Sacuudiga u dhisaya saldhig loogu talagalay gantaalaha ku shaqeeya tamarta iyo ciidamada Imaaraadka oo Yemen ku dilay 6 ruux oo cibaadeysanay وصباحنimo sabtiga taariikhduna ay ku beegan tahay 8 bisha 6 sanadkan 2019 intaas aad maqasheen dhageystayaal waxay ahaayeen qodobadii wararka risaale idiin diyaarisay imikana ku soo dhawaada warkii subaxnimo intaasi ka faahfaahsan maalmihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay guux ku aadan olole mooshin laga wado gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo hadda dalka ka maqan iyadoo ololahan uu u socday si hoose xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inay wadaan diyaarinta mooshinka ka dhanka ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muudey sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada qaarkood ayaa sheegay inuu maalmahanba jiray guuxa mooshinka hasaatee aan si rasmi ah loo ogeyn heerka uu gaarsiisan yahay marka loo eego abaabulkiisa oo aan hadda muuqan mid xowli ku socda balse suuragal ay tahay marka uu baarlamaanka ka soo laabto fasaxa ciida inuu soo shaacbaxo warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in gudoomiye Cabdiweli Muudey uu aad uga soo horjeedo sharciga doorashooyinka oo hadda hor yaala baarlamaanka kaasoo qorshaha madaxtooyada xukuumadda wadato uu yahay in doorashada madaxweynaha ay noqoto mid ay doortaan dadweynaha halkii ay hore xildhibaanada u dooran jireen xildhibaano ku dhow madaxtooyada ayaa la sheegay inay hormuud u yihiin mooshinka la doonayay in laga keeno gudoomiye Muudey oo loo arko inuu caqabad ku yahay sharciga doorashooyinka ayna jireen kale aragti duwanaan isaga iyo madaxweynaha oo ku saabsan sharciga doorashooyinka ee bishii hore ay ansixiyeen golaha wasiirada gudoomiye Cabdiweli Muudey ayaa xilligan ku maqan dalka Turkiga iyadoo la rumaysan yahay inuu xilligan awood ku leeyahay baarlamaanka waxaana la xasuustaa doorkii uu ku lahaa xilka qaadistii ama ridistii gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaari lama oga sida uu ku suuragali doono ololahan ka dhanka ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya iyadoo mooshinka laga keenayo ay u baahnaan doonto 3 meel hal meel oo ah 91 xildhibaan tirada uu ku gudbi karo mooshinkan ka dhanka ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey gudoomiyihii gobolka Hiiraan ayaa xilka qaadis lagu sameeyay saacado kadib markii uu warbaahinta ka jeediyay eedeyn uu u jeediyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Rijaal Cabdi Maxamed ayaa warkan sii dhameystiraya wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan looga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed waxaana xilkaas loo magacaabay Cali Maxamed Caraale gudoomiye Dabageed ayaa shalay eedeyn u jeediyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo uu sheegay inuu ku fashilmay maamulinta deegaanada maamulka Hirshabeelle isla markaana madaxweynuhu uu doonayo dhaqaalaha ka soo baxa gobolka Hiiraan inuu aruursado isagoo aan dadweynaha waxba ugu qaban torogaay bangina ma tigin keelana ma tigin shaqaalana isma arag ninkay ugu xigaan u diraa waxaas beledka wixii yimaadana gudoomiyaha degmadan u diraa hadda intaan joogo saasan sameynaa diyaaleedu Maxamed Cabdi Waare wuxuu wax ku maamulaa aniga waa diidnay warkan sheegaana war Yuusuf Dabageed maahan warka aniga sheegaa ee warkii reer Hiiraan ii dhiibeen waaye wax galadka reer Hiiraan warkay ii dhiibeen waaye waasyada reer Hiiraan warkay ii dhiibeen waaye
odayaasha reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye ganacsatada reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye dadka reer hiiraan oo dadka soomaaliyeed ood wakiilka ka tihiin ood mas-uuliyaddu haysiin ka mida xaaladiisa si degdega uga soo gaara si degdega u soo farageliya dalka adikaa dowladdii qaranka ka ah dowladdii qaranka adikaa ah qarankii soomaaliyeed adikaa wakiilka ah baarlamaanka xubnaha baarlamaanka iyo xubnaha wasiirada ee ka soo jeeda hirshabeelle waxaan ka codsanaa gobolka hiiraan iyo degdeg wax uga qabtaan iyo maxamed cabdiwaare waxaa ka dhex jira madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo uu kulamo kala duwan kula lahaa qaar ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan isagoo horey xilka qaadis ugu sameeyey gudoomiyihii magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiye cusubna uu magacaabay madaxweyne waare wax ka yar 2 sano xilka hayay ayaa ku dhawaad 3 gudoomiye u magacaabay gobolka hiiraan isagoo sidoo kalena isbedelo badan maamulkiisu ay ku sameeyeen gobolka hiiraan oo 6 bilood kastaba odayaasha dhaqanka ay sheegeen in loo soo magacaabo gudoomiye cusub midkii la qabsaday magaalada ama gobolkana xilka laga ceeriyo waxa ay dhowr jeer odayaasha dhaqanka ku eedeeyeen madaxweyne waare in isbedelka degdega ah ee maamulka lagu sameeyo uu hoos u dhigayo wada shaqeynta shacabka iyo maamulka gobolka hiiraan maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa 12 sano iyo bar ku xukuntay sarkaal Soomaali ah kana tirsan booliiska Mareykanka oo dil geystay Ubax Maxamed ayaa warkan sii dhameystiraysa garsoore ku sugan maxkamad ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa xabsi 12 sano iyo bar ah ku xukumay Maxamed Nuur oo ahaa askari ka tirsan booliiska Minneapolis maxamed nuur ayaa asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya waxa uuna ka mid ahaa saraakiishii booliska ee Soomaalida ahaa ee ugu horeysay ee ka mid noqda booliska dalka Mareykanka guddi xeerbeegta ah oo eegayay dacwadda dilka ah oo lagu soo eedeeyay maxamed nuur ayaa ku helay 2 dambi oo dil ah mid ka mid ah dambiyada lagu helay ayaa ah dilka darajada heerka 3 waxaase lagu waayay dilka darajada heerka 2 oo ciqaabtiisa ka badnaan lahayd midkan maxamed nuur ayaa loo haystaa dilka kabar cadaan ah oo lagu magacaabi jiray Justin una dhalatay dalka Australia nuur ayaa dilay Justin oo booliska wacday kadib markii ay baqdin dareentay sanadii 2017 maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay dib u dhis ku bilaabayaan buundada magaalada Bariire oo shabaab ay qarxiyeen cali xasan ayaa macluumaadka warkan sii faahfaahinaya isaaq cali subag wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo gaaray deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dhawaan ay kala wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa al-shabaab oo muddo halkaasi ka ariminayay wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dib u dhis lagu sameynayo buundada Bariire oo sanadkii 2017 ee al-shabaab burburiyeen taas oo u tilmaamay inay muhiim u tahay isku socodka dadka ku nool degmada Bariire waxa uu intaa ku daray wasiirka inay geeyeen buundada injineer qiimeyn ku sameeya qaabka ugu fudud ee lagu dhisi karo buundada maadaama ay hakad ku jirto isku socodka dadka ku nool degmadaasi akiish ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada amisom oo runtii iska kaashaday oo na suurageliyay maanta inaan soo gaarno deegaanka Bariire si aan u ogaano xaaladda amni ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanka Bariire iyo baahida ay qabaan runtii markaan magaalo soo galnay waxa ugu horeey aan aragnay waxay ahayd in buundadii Bariire cadawga al-shabaab ay burburiyeen aan la soo gudbi karin magaalada labada qaybood waxa ilaahay mahadiisa oo noo suuragelay inaan injineer aan horay u soo wadnay oo gudoomiyaha gobolka uu naga caawiyay marka injineerkii aan la socdo si loo cabiro loo qiimeeyo buundada qalabka ay u baahan tahay si dib loogu dayactiro ay u suura gasho isku socodka magaalada labada qaybood wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed oo uu weheliyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa muddooyinkii dambe waxay kormeer kala duwan ku tagayeen deegaanada ugu dambeeyay ee ciidamada dowladda kala wareegeen kuwa al-shabaab ee hoos yimaada gobolka Shabeellaha Hoose
kooxaha hubeysan ayaa xalay xaafada hantiwadaag ee magaalada jowhar ku dilay mid ka mid ah dhalinyarada magaalada jowhar kaasoo lagu magacaabi jiray cabdirashiid xaaji maxamed sheekh cali rag bastoolado ku hubeysan ayaa dhowr xabo ku dhuftay cabdirashiid oo ka mid ahaa saraakiisha waaxda dabagalka canshuuraha magaalada jowhar kooxdii dilka geysatay ayaa la sheegay inay baxsadeen waxaana goobta dilka uu ka dhacay waqti dambe gaaray ciidamada booliiska magaalada jowhar oo halkaasi ka sameeyay baaritaano allahu naxariistay cabdirashiid xaaji maxamed ayaa ka mid ahaa dhalinyarada magaalada jowhar ee ku biiray maamulka sidoo kalena ka mid ahaa ragga ugu firfircoon ee ka shaqeynayay waaxda dabagalka canshuuraha magaaladaasi balse dabley hubeysan ayaa ugu dambeyn xalay ku toogatay magaalada jowhar oo uu ku geeriyooday ugu dambeynna maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa la soo warinayaa inuu ogolaaday in dalka Sacuudiga laga dhiso hanaanka casriga ee gantaalaha waaweyn ee ku shaqeeya teknoolajiyadda saldhigga laga dhisayo mashruucan gantaalaha waaweyn ayaa dowladda Sacuudiga u adeegsan doontaa dhanka difaaca iyo weerarada ka dhanka kooxaha ay dagaalka kula jirto gaar ahaan Xuutiyiinta Yemen warbixintan oo lagu daabacay majalada Washington Post ayaa Trump wuxuu u ogolaaday kooxda u xil saaran dhanka dhismaha militariga Mareykanka inay dadejiyaan mashruucan saldhiggan ayaa gantaalaha la geenayo wuxuu ku shaqeyn doonaa quwadda korontada u gaar ah arrintan ayaa imaanaysa iyadoo bishii hore uu Mareykanku ku dhawaaqay inuu ka iibinayo boqortooyada Sacuudiga iyo Imaaraadka hub qiimihiisu lacageed lagu qiyaasay 8.1 bilyan oo dollar dowladda Sacuudiga ayaa horey loogu eedeeyay in hub ay ka iibsatay Mareykanka loo adeegsaday dagaalka ka socda Yemen oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo shacab ah